La kulan Lila oo ah gabar xun villain kale oo jacayl u qabta Adrien. Adrien wuxuu arkayaa aabihii oo meel qarsoon ku qarinaya buug. Markuu buugga furana wuxuu ka helayaa xog ku saabsan mira culuska. Dhanka kale Lila waxay isku dayaysaa inay Adrien ku kasbato beenaheeda maadaama ay jeceshahay. Laakiin Ladybug ayaa soo muuqata oo Adrien hortiisa ku fashilisa dhammaan beentaheeda. Lila way oydaa oo way carartaa, markaas Hawkmoth ayaa akumatisa gareeya, isagoo u beddelaya geesi been abuur ah oo khiyaaneeya Cad-Noir. Ugu dambayn Ladybug iyo Cad-Noir waxay ogaadaan inaysan ahayn geesi dab ah, wayna ka adkaadaan. Qaybta ugu horreysa ee xilli ciyaareedka labaad, Marinette waxay iyadoo Tiki la socoto timaadaa dukaanka duugista ee Master Fu. Waxay ka wada hadlaan sida uu muhiimka u yahay buugga mira culuska. Master Fu wuxuu sharxayaa inuu hore qalad u galay, qaladkaas oo sababay in buugga la waayo iyo in macbudkii la burburiyo. Marinette waxay bilaabaysaa inay ka shakido in Adrien uu yahay Hawkmoth, balse markii dambe waxay ogaataa inuusan isagu ahayn. Dhanka kale, Adrien aabihii, Gabriel, wuxuu ogaadaa in buuggu maqan yahay, wuxuuna diidaa inuu Adrien u ogolaado inuu dugsiga aado. Marinette markaas waxay ka shakisaa in Gabriel uu yahay Hawkmoth, balse ugu dambayn waxay ogaanaysaa inuusan isaguna ahayn. Adrien wuxuu isu beddelaa Cad-Noir, wuxuuna Ladybug kala shaqeeyaa raadinta buugga. Waxay la dagaalamaan T-Collector oo dhab ahaantii ah Gabriel oo akuma lagu diray. Ugu dambayn way ka adkaadaan, Gabrielna sidii caadiga ahayd ayuu ku noqdaa. Marinette waxay buugga dib ugu celisaa Gabriel, beddelkeedana Gabriel wuxuu Adrien u ogolaadaa inuu dugsiga ku laabto. Qaybta xigta, Marinette waxay doonaysaa inay ku biirto koox waxbarasho, balse way walwalsan tahay. Tiki ayaa dhiirigelisa. Kadib waxaa la isku daraa iyada iyo Adrien, wuxuuna siiyaa talooyin waxtar leh. Markii dambe ardayad cusub oo la yiraahdo Kagami ayaa dugsiga timaada. Waxay Adrien kula tartantaa seefleyda Fen Ing iyadoo sheegaysa inay xirfad weyn leedahay. Labadoodu way loolamaan, ugu dambayna Kagami waa laga adkaadaa. Hawkmoth wuxuu akuma u diraa Kagami oo ka niyad jabsan guuldarradeeda, taasoo sababta inay isu beddesho makhluuq awood badan. Adrien wuxuu isku dayaa inuu ka fogaado la dagaalanka iyada isagoo qaabkiisa caadiga ah ku jira, balse wuu dhaawacmaa. Ladybug ayaa u timaada inay caawiso, laakiin cadowgu aad buu u xoog badan yahay. Ladybug iyo Cad-Noir ayaa markaas si wada jir ah ula dagaalama, iyagoo adeegsanaya xeelad iyo wada shaqayn si ay uga adkaadaan. Ladybug waxay isticmaashaa Lucky Charmkeeda si ay u hesho akumada, u jebiso cadowga, uguna soo celiso wax walba sidii caadiga ahayd. Kadib Adrien iyo Kagami mar kale ayay kulmaan, waxayna ku heshiiyaan inay mar kale tartamaan. Marinette waxay bilaabaysaa inay ka walwasho in Adrien uu dareen jacayl u qaaday Kagami. qayb kale oo taxanaha ah, Marinette like and follow kuna soo biir kanalkayga, waxaad ka heli doontaa taxanaha mira culus Ladybug and Cad-Noir.